السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي مeel ku joogtaan sidoo kale maqlaysan waan salaamaya. Maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo maadaama guruubyadii Euro ay soo dhamaadeen kulamadii adkaay Eurogan kulli waa laga yaaban yahay totally waa ka duwan yahay kuwii hore oo loo soo arki jiray sabraasi fara badan oo meesha ka muuqdo kooxo qaar dadka ka yaabsan sida Georgia, Turkiya, Austria kooxo fara badan oo laga yaabay qaar muhiim ah hareen kooxo adag gurubyada 4 dhibcood ka soo baxeen sida Croatia oo 4 dhibcood iyadoo la hartay haddana lala yaaban yahay soo maaragtay kooxo adag hareen sida Croatia kamid tahay kuwa iska aan la maleysanaynin oo kaalmaha hoose ku jiro sida Georgia oo kaalmo ugu hooseeya ku jirta qiimeynta ka yaabsatay adduunka Ronaldo oo sidoo kale Georgia ay ka badisay oo ciyaalkii 2018 sawirada oo la galay ka yaabsadeen maaragtay Eurogan inaba caadi maahan kulli waxa ka sii adkaa doonto hadda isku adilaan markii la yimaado 14ka markii isku yimaado ama semifinal marka koox walba imaado oo 8 koox isku soo jabto oo 4 koox nadiif ama 8 koox oo nadiif laga soo saaro markaas xaalada aad u adkaa doonta haddaba sida iskugu aaday ayaa macquul ka sameyn doona kooxa ugu macquulsan oo sidii karno hadiisan sabraasi aysan dhicin iyo mufaajaad waxa ay dhahaan luqadda carabiga hadiisan la yaab dhicin kooxaha soo bixi doona isla lahay laba isku aadan kuwaas macquul inay banaanka imaadaan horta sida iskugu soo aaday maxaa la dhahay Germany iyo maaragtay Denmark oo wada ciyaarayo iyo sidoo kale England kulli waxa la way baxsatay England way baxsatay group fudud ayay gashay wada fudud ay qaaday groupkan Amani qado ama heavyweight-ka oo ay ka badbaaday inkastoo muhiimadda la rabo adig wixii rabaha kugu soo aadaa laakiin aqoon inaa final ka imaado koox kasto adagna ka badiso ku timaado waa kooxkan hadda laga rabo bilaayo ku haysto xadaan xamarkeen bilaayo ku haysto maxaa la dhahay abay ma looga baxmiya marka kulli Germany iyo Denmark waa isqabanayaan Spain iyo Georgia aad u adag tahay isleeyahay anigana Portugal iyo maaragtay iyadana sidoo kale inkastoo Portugal iyo dadkeeda group ujeedin isku aadka kooxaha inaba caadi maahan qaabka la iskugu aadiyay qaabka loo soo wada baxay sida ka aragno Espanyol ama Isbaanishka iyo Georgia isku aadeen maxaa la dhahay Germany iyo Denmark isku aadeen maaragtay Portugal iyo maaragtay Portugal dadkeeda ku aaday Slovenia ku aaday sidoo kale maxaa la France iyo Belgium isku aadeen maaragtay wala waa quarter final aad u adag noqon doona kooxaha quarter final imaana aad u adkaa doona haddaba waa falanqeyn doona insha Allah sidoo kale waxa isku soo aadi waxa waaye marka soo qaadano France iyo Belgium oo maaragtay Belgium maanta saabna lagu oriyay orin badan lagu sameeyay xitaa maaragtay asigoo qaatay kulankii hore iyo kan baa soo qaatay De Bruyne oo haddana lagu orinayay Leicester lagu qabanayay aad Belgium ku xanaaqsanayeen kulli taageerayaashooda xaqeed u leeyihiin markaa fiirino because koox saas u adag oo maaragtay dhamaystir aanan lahayn intaas oo baasas oo De Bruyne keena shaqeeyeen haddana maaragtay waxba laga keenin aad u xanuun badan tahay xaqi u lahaayeen France naftirkeeda koox adag waaye saas leenahay koox aad u adag waaye laakiin dhibaatada waxa ka jirta waxaa waaye markaa fiirino isku dhaxyaac fara badan oo ani dhanka tababaraha is leeyahay oo yani bandhigii loogu talagalay iyo kooxda sidii laga rabay iyo uusan maaragtay u bushgareyneynin oo maaragtay weli ku jirtaan aaminsana qaladka keliya France haysato aaminsana waxa waaye inay tahay tababaraha oo qaladka aan sameeyay in tababarahan maadaama uu yimid koob adduun oo qaaday mid kale semifinal yimid Euro hore laga qaaday
maaragtay waxyaabahaas oo dhan xoogaa waxay keeneen isku dhex yaac oo dhanka maaragtay energy la-aanta maaragtay energy ka dhamaaday sure taas aniga u eedeynaa maaragtay tan kale oo jirtana waxa waaye dhaawacii oo maaragtay Ibembe dhibaatadeeda isna u keenta isleeyahay oo maantaba fakfakti iyo maadaama is-ilaalis iyo waxyaaba ku jiro laakiin alcumuum inuu soo baxay final quarter final soo maaragtay inay gurubyada ka soo baxeen haddana quarter final soo aadaan rabaan maadaama Belgium ay hortaagan yihiin in culeyska dhinacaas wax isleeyahay oo ay ka badbaadi doonaan maadaama jaanis fiican ay haystaan hadda maaragtay laakiin Belgium lafkooda meel iska laakiin inta waxa ugu fiican oo isleeyahay Belgiumka maanta waa looga faa'iideysan karaa waxaa dhamaystir la'aanta kubaddooda adag diiku arkaysan gaal baalkaas inuu dhamaystir fiican gambis ka sameeyey 19 mar in ku dhawaad inuu soo galay shootaha haddana waxba uusan ka sameynin soo taas waxay nasiib u yeeli kartaa Faransa inay si fudud kusoo baxdo quarter final ku imaato taas dhaliilaha oo Faransa u hayo waaye dhanka maadaama anigu Zidane oo nin dhalinyaro weli energy haynahay in dishaan oo maaragtay weli maaragtay oday ah energy ka dhamaaday weli aan meesha ku hayno qaladka biggest ugu weyn Faransa taas waaye laakiin ciyaaryahano iyo maaragtay bandhigooda oo liitay waxa keenay waxaa ciyaaryahano kuma yaro laakiin qaladaadkaas oo qaranka uu sameeyey muhiimadda taas waaye mar walba oo qaranka marka ka hadalnaan qarankane waxa uu kaa fiirinayo ma ahan koox si fiican u ciyaarayso koox talantigeeda muhiimadda ma soo baxday hadda waxaa lagu xisaabtamaya keliya gurubyada ma kasoo baxay waa kasoo baxay bes dan mana qaranka ma fiirinayo ma lagu bushkareenayo ciyaaryahanada kee saftay keesan safin maaragtay maxaa la dhahay waxaa ka hadlo ciyaaryahanka muxuu safin waaya muxuu kan u dhaafay muxuu kan u watay keliya waxaa waaye taageerayaasha iyo falanqeeyaasha laakiin xiriirka ama qaranka waxa uu kaala xisaabtamaya keliya adeer koob ma qaaday ma soo baxday kooxaha xifaatin ka dhexeeya ay isnacban yihiin oo maaragtay taariikhaha soo jireenka ee ka dhexeeyey markii ka hor imaaday si ula macaamishay intaas oo ula xisaabtamayo laakiin mar ula xisaabtamaayo kooxda bandhigeeda iyo maayanaha qaabka u ciyaartay iyo waxaas oo dhan ma laga xisaabtamayo marka taas waa wuxuu faa'iido ku haysto Deschamps oo maanta boos ku joogo aan rajeynayo laakiin haddii Euro laga qaado ama meel xun ku soo haro ama final ku soo haro inuu sida cagab badan ku sii taagnaa doonin oo ay wax walba oo loo hayay soo gabagabi doonaan laakiin waa rajeynayna inuu meel fiican tago xilligan Euro-ha marka qatas Faransa ugu soo gudbo iyo falanqeynteeda loogu talagalay kulley laba qeyb kooxahan 16 8 ayaa loo kala jebiyey 8 walba waxaa laga rabaa afar ka mid ah inay quarter final imaado semifinal inay imaado quarter final ku jiraan semifinal imaado semifinal kadibna final ay tagaan maaragtay hadda semifinal hadda quarter final imaanayaan kadibna quarter final kadib semifinal soo wareega hadda 16 jooga wareega 16 soo halkaas marka saas leeyahay Spain iyo Georgia horta Georgia dhalinyaro da'yar oo ka yaabsada Ronaldo habeenkii xalaha ay haystaan oo bandhigooda aad u qurux badnaa lama dhaysan karo inkastoo hore usoo sheegay in Euro-gan surprise fara badan lagu arkay oo la yaab fara badan ay soo baxeen sida kooxaha Georgia oo kaalmaha hoose ku jira oo maanta bandhigaas wanaagsan sameyso iyo kaalmaha fiican ku jirtay Croatia oo maaragtay bandhigeeda fiicnaa dana hartay 4 dhibcood iyadoo haysato xitaa sharciyadaas maaragtay oo FIFA ay dadka qaylinayaan dhaayaan macquul maahan sharciyada UEFA qof 4 dhibac haysto koox haysto haddana harayso aad u xanuun badan tahay dadka qaar cabasho kasoo jeediyeen kulley Germany iyo Denmark iyadana arrinta kubadda Ingiriiska la ciyaartay oo kale kubad waxay ahayd maasha Allah oo baasaska iyo maaragtay qaabka u ciyaarayaan kubad fadhisa ahayd kulley laakiin waxay Germany kala kulanta arki doonaa Portugal iyo Slovenia iyadana si wajahan yihiin inkastoo maaragtay CR7 xale dhaliil laga soo jeediyey xanaaqii uu ka sameeyey tababaraha markii uu bedel ku sameeyey kadib markii labada gool laga dhaliyey
asigan bandhigiisa lagu qancin kadibna maadaama nin oday uu yahay haddana already ay soo baxeen yani inuu isxanaajiyo kolley ma qurux badnaa lahayn ani ahaan marka u hadla ciyaaryahan ahaan iyo tababar ahaan in haddii aad ciyaaryahan tahay marka ciyaaryahan ku bilaabo marka ciyaaryahan tahay adoo soo baxday maadaama muhiimadda ani awaarka Ronaldo xanaaq waxayd inuu rabo keliya inuu gool dhaliyo laakiin inaysan ahayn muhiimad in adiga gool dhaliso oo shakil anonimada ahayd uu soo celiyey ama selfishnimada oo maaragtay aniga keliya wax qabsada rabo aniga keliya wax gool dhaliya rabo taas inaysan macquul ahayn laakiin inuu ka fiiriyo ahayd inay soo baxeen asigana ilaa 60 kii la ciyaarsiiyey labada kun hore soo ciyaarsiiyey marka inuu xanaaqo arin aad u xun ahayd kulli laakiin Ronaldo iska taalluu sheegay iska Ronaldina bandhigiisa iyo maaragtay soo kaamirooyinkaas ku soo aadayo la macaamilaya wuxuu u joojinaya malahan laakiin tababaraha marka dhinaca isfiir tababaraha waa la saxsanay maadaama kooxda lagu gool leeyahay Ronaldo neef badan uusan haynin already ay soo baxeen in la bedelay oo dhalinyarada ka hortagta loo baahan yahay marka taas adiga tababaraha ku saxsanay isleeyahay Ronaldo waa qaldana Lukaku iyo bandhigiisa maaragtay inkastoo kooxo uu leeyahay kooxdu ka tagay aniga waxa uu ciyaaraysay kooxda aniga ma aqaano maaragtay sports ganacsi oo noqday kooxdan matalan kooxdan oo ciyaaraysay waxa kooxda uu ciyaaray xifaaltanka waa laga tagay taagan yahay lacag u baahanahay kooxa aniga macnaha maxaa la ahaa bandhigii kusoo bandhiga u baahanahay kooxda weyn oo badan saas u taagan yahay caadiya warkiisu caadiya marka inkastoo aad loo gool fara badan laga diiday bandhigiisa laakiin uu gool la'aanteed kamaysan ku qancin iyo xulka Belgium intaba laakiin العموم wuxuu ka hortagi doonaa kooxda adag dambe Faransa marka sidoo kale Romania iyo Netherlands kusoo aadeen midkeeda ma xumo Austria iyo Turkiya ma xumo Ingiriiska oo Slovakia kusoo aaday Ingiriiska batata waxba looma hayo Ingiriiska inkastoo hadda la leeyahay Ricky Foden ahay xaaskiisa ayaa foolkiisa uga tagay laakiin maanta xadina soo talajina inkastoo Foden lagu eedeynayo in maaragtay bandhigiisu aad u liitay uusan ku wanaagsaneyn qaranka halka City meesha ku wanaagsan yahay bandhiga soo bandhigay soo qaranka soo bandhigin ciyaartoy ahaan hadda u fiirin aniga waa ila sax laakiin wuxuu u baahan yahay tababare bushgareeya innaha u shaqaysaas leeyahay laakiin tababaraha Ingiriiska aad u liitaa dadka oo dhan ilaa hadda taageerayaasha maxaa la dhahaa falanqeeyaasha intaba ay kasoo horjeedaan ma ku qanacsano waana ku qaldanayaan Ingiriiska sida Faransa ay tababaraha ugu qaldan yihiin inay weli meesha kusii hayaan ayaga Ingiriiska ugu qaldan yihiin dhibaatooyinka haysato Faransa iyo England aniga isleeyahay oo waadixa oo aan ka qarsan lahayn waa tababarayaasha sababtoo ah waxay haystaan labada xulba laba jiil oo aad dahabi u ah laakiin aysan ka faa'iideysanin bandhig fiican aysan soo bandhigin si wanaagsan aysan ku soo bixin labadaba marka aniga dhanka tababaraha isleeyahay England in laga haysto oo maaragtay dhankaas inay ka tanaasulaan ninkan mar hawada ku cunaan inay ahayd laakiin weli ay boos kusii hayaan laakiin كل العموم محلي إنجليز كحول كان أقول كان سجل جروب يعني تكون شيء سجل تكون حياة تكون شران إنه كواتر فينا كيس نفينا كل معضان إن ما عرفتي ما أترك واحد أدق معهن إن كلية مركي إن لجربه إن حول وادق إيطالي وجهها يعني سليه هاي جروب كاس وادق ونيذرلاند إيطالي Netherlands waa baarak raas leh laakiin Italy marka xaqada ka hadalno inkastoo bandhigiisa sanadkiisa wuu liidan lahay laakiin koox si fudud looga soo bixi karo ama si fudud dhibca looga tirsan karo ma ilaa aniga laakiin saddexda koox ugu adag as leenahay maartay waa ay wax weyn ay sameyn karaan groupkan England ku jiro waa Italy oo aan marnaba shariifto inkastoo kooxaha kale maartay Italy Switzerland معناها محل هاي إنسان Switzerland كده إنسان شكله إنسان بنيك ونحسنا الشاكة وصوب بنيك وكان أدله وقناعي لما يقدم به وكيف سندت بدن لكن مهمة أني وحصلها هاي قابك واحد وبريك كرو وحافر أفرت إلى كرو أني سنة الجروب كان إنجليز كوجت حصلها هاي
saadaasha waa iska wax macquul ah iyo bandhigii iyo qaabka tababaraha ciyaaryahanada iyo wax walba la eegayo isleeyahay aniga iyo xululka nafkooda fac weyn leeyihiin aniga wax isleeyahay saadaal ahaan inay soo bixi karaan Netherland iyo Turkiga Ingiriiska iyo Talyaani aniga wax isleeyahay intaas iyo waxaa shaki igaga jira Switzerland Turkiyada oo shaki igaga jira isleeyahay way soo bixi kartaa oo iman kartaa oo midkood inuu hari karo afartan hadda soo sheegay isleeyahay العمالقة markaa u imaado amba heavyweight waaweynka markaa u imaano Spain waxay soo bixi kartaa leeyahay Georgia inkastoo aysan ciyaaryahanno wanaagsan ay haysato oo aan la dhayalsan karaynin laakiin banaankeed taalaas leeyahay soo bixi kartaa groupkan Germany sidoo kale Portugal Slovenia ka soo bixi kartaa isleeyahay maaragtay Faransa iyo Belgium Faransa soo bixi kartaa isleeyahay quarter final marka semi finalka aniga waxaa isleeyahay waxaa iskugu imaan kara koox aad u adag afartaas koox adag sida Spain Germany Portugal iyo Faransa groupkaasna kulan walbo wuxuu noqon doonaa final kubad aad u adag noqon doontaa oo aan indhaha laga qaadin maaragtay saxaafadda adduunka kaamirooyinka adduunka ay aad indhaha ugu hayn doonaan kulan walba oo maaragtay finaalo fara badan in lasoo hormariya umaleysaa markii hadda group 16 ku dhamaado in lasoo hormariya umaleysaa semifinalo adag in lasoo hormariyay finaalo adag in lasoo hormariyay maadaama haddii isqabtaan Germany iyo Spain waa kulan adag oo soo finaal ah Faransa iyo Portugal waa finaal adag iyadoo semifinalka haddana finaal oo dhintaan sida aaminsanahay inkastoo nafkooda markii ay isqabtaan England iyo Italy ay iyadana finaal kala tahay sida aaminsanahay kulankaas shaashadaha caalamka iyo kaamirooyinka iyo saxaafadda bay indhaha ku hayn doonaan ciyaaryahanada iyo taageerayaasha isleeyahay Netherland iyo Turkiga qofka soo baxo hadda isku soo labadooda soo baxaan sida aniga isleeyahay inuu idinkeeda kulan iska meel xafiiftiifti isleeyahay adag yahay marka kuley intaas inaan kusii fogaado marba intaas keliya inaan ka dhaharabay oo labada kelimood aan ka sheego falanqeynta maadaama groupka uu soo dhamaaday 16 wareeg kala jooga hadda marka maraba inaad usii fogaado intaas keliya inaan ka dhahan jeclaysta falanqeynta maanta marna aad waqtiga noogu dheereeyo sidaa marwalba sheego asxaabta sportiska ma jeclo in hadalka ugu badiyo intaasoo kusoo gabagabeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu